dhanka kalena dowladda ku meel gaarka ayaa beenisay in ciidamadeeda iyo amisom wada jira ay dib uga soo noqdeen goobihii ay kala wareegeen ururka xarakatu shabaab almujaahidiin ee degmada Daynile oo ay dhawaan ku dagaalameen. waa kan mar kale wariye Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto oo umuurtaas la faguraya. kadib dagaallo qaraar oo maalintii labaad ku dhex marayo qayb ka mid ah degmada Daynile ee gobolka Banaadir ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM iyo dhinaca kale ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa abaandulaha ciidanka xoogga dalka Generaal Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay qayb ka mid ah aaga hore ee dagaalka ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay inay dib uga soo ruqaansadeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM goobihii ay kula wareegeen dagaaladii ka dhacay qayb ka mid ah degmadaasi. waxa ayaan darro ah oo inaan ka jawaabana aan loo baahnay sida ragga qaarkii kooxihii jidiya jaadiidka ay u hadlaayeen oo idaacooyinka looga dhegaysanayay bulshadana ay uga sheekaynayeen oo ay leeyihiin meydad 70 iyo intaasaan layn ma malaynayo inay wax layn karaan ma malaynayo goobii anu waan qabsaday waan ku suganaa nin goob laga qabsaday yaana dhaawac ama dhimada dadkii ayaga ka dhintay oo ajnabiga ahaa iyo kuwii Soomaaliyeed oo ka dhintay oo ayaga ciidankooda ayay yaaniyada ku jiidayaan oo bulshada naf uga raadinayaan taasuna bulshada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay oo aan binaada aan ku qabaa dadkana aan ugu farax gelinaynaa maalmaha soo socda inaan anisaynayn waxa weeye jidiya jaadiidka abeesooyinkii ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo adduunka caalamka wantedka ka waa abeesooyin wanted ah oo caalamka wantedka Soomaaliyana wantedka oo doonayaan wiilasha yaryar inay gabaad ka dhigtaan. dagaalada ka soconaya degmada Daynile oo galay maalintii labaad isla markaana ay barbar soconayaan duqeymo xoogan oo lagu garaacayo qayb ka mid ah degmadaasi ayaa waxa dagaalkii ugu xooganaa uu ka dhacay inta u dhaxaysa Dibiley iyo xaafadda Tiida ee degmadaasi Daynile. qayb ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ayaa waxa maanta booqday haween ka socday ururka bilicda iyo rajo soo celinta si ay u dhiirigeliyaan ciidamada iyagoona ciidamada ku wareejiyay waxyaabo ay ugu talagaleen inay ku dhiirigeliyaan ciidamada dawladda. Jawaahir Baarqab oo xubin ka ah ururka bilicda iyo rajo soo celinta oo iyana saxaafadda kula hadashay qayb ka mid ah aaga hore ee dagaalka ayaa waxa ay ka dhawaajisay inay garab taagan yihiin ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya si ay ugu guuleystaan dagaalada ay kula jiraan xarakatu shabaab. waxa la rabaa inaad ilaahay ka baqataan oo ilaahay u noqotaan war waa la idin qalday idinka waaweyn adinsan soo laabto walaalayaal ilaahay u noqda waxaan taaganaa meeshan waxaan rabaa qolada been abuurayaasha ah propagandaha maaragtay idaacadaha ka sheegayo idaacadaha qaarkood inay ka waantoobaan shalay galab meeshan 12 saacana ka tagi bartaan ka tagnay ciidanku waa bayskoodii aaga ugu horeeyna waxay jiraan jiida degmada Daynilana waa tan oo dacalkaas ay nagu haysaa maxaa beenta u sheegaysaan ciidamadan 500 laga midilin ciidamadan ciidamo baabiina kuwan waa kuwa dadka cagta mari jiray codkooda waxay ka daran yihiin kaarahay ka daran yihiin marka walaalayaal been ha sheegnina 120 qof ka badana ilaa xalay soo wacaysa waa la soo jabiyay ciidamada kuwan ma jabaan waa geesiyada dalka waa kuwii maaragtay idinka la rabo inay 10 la miloowankayda ku dhigaan waxaan ku hadlayaa mar labaad magaca haweenka Soomaaliyeed haddaan nahay haweenka gabdhaha diaspora kuwa gudaha ku noolow ganacsatadooy ilaahay ka noqdo ilaahay u noqdo oo ciidamada garab siiya walaalayaal waa mahadsantiin AMISOM ha guulaysato ciidamada qalabka sida ha guulaysan markii dalkeena hooyo cadawgu soo hajuumay markii dalkeena hooyo cadawgu soo hajuumay nabadu hela laawday dagaalka la isku hoobtay miyaysan haweenka Soomaaliyeed halganka joojimayno jiraan himiila gaarno halganka joojimayno jiraan himiila gaarno loogaami Sheekh Shariif. si kastaba
dagaaladani maalintii labaad ka soconayo qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa dhinacyada dagaalamaya mid walba waxa uu sheegtay inuu guulo military ka gaaray inkastoo dhibaatada ugu xoogani ay soo gaartay shacabka Soomaaliyeed ee lagu dul dagaalamayo. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho.